way ku dhaawacmeen kadib markii ismaandhaaf gacan ka hadal dhaliyay uu ka dhashay goob raashin lagu qiibinayo oo ku taal duleedka galbeed ee degmada Aabudwaaq ee gobolka Galgaduud sida ay weerarkan ayaa yimid kadib markii ilaalada raashinkaasi la qiibinayay ay ismaandhaafeen nin hubaysan oo watay kaarka cunto qaybta kaasoo khilaaf dhex maray isaga iyo ilaalada kadibna rasaas ooda uga qaaday goobtii raashin qaybintaasi ka socotay waxaana halkaasi ku dhintay 2 qof oo ilaalada raashinka ka mid ahaa 10 qof oo kale oo 6 ka mid ay ahaayeen haweenna waa ay ku dhaawacmeen sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta isbitaallo aan la xiriirnay dadka dhaawacmay oo ay ku jiraan 6 haweena ayaa badankooda ahaa dadkii barakacyaasha ee raashinkaasi loo qaybinayay kuwaasoo haatan lagula tacaalaya dhaawacooda goobaha caafimaadka ee Aabudwaaq waxaana gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Aabudwaaq Muuse Axmed Maxamed Muuse Inji oo u sheegay Honkebel haweenkaasi dhaawacmay qaarkood inay aad u liitaan xaaladooda waxaa jirtay hay'ad dayri ah oo la yiraahdo Relief Organization ama hay'adda quudinta dadka ee khayriga ayaa waxay ku talagashay 1,000 qoys dadkii ka soo barakacay deegaanada ku xeeran degmada Aabudwaaq iyo xuduudkaas dheer dadkaas xoolay abaarta ka dhamaysay oo ay ku tabareysnaayeen marka raashinkii markay keentay hore loo diiwaan geliyay kaarne la siiyay markii ilaa 100 qoys qaadatay dabcan intii kalena markaas safka ay ku jiraan in orday inuu soo jiiro waardiyihii iyo dadkii mataqaana kaar soo gacan ku haysta tubaalii mataqaana layka gal uu diiday aduu nin waardiyaha bay wada hadleen dib uu laabtay gaari meesha uu laaban buu qori buuxa ka soo qaatay ragii waardiyaha iyo dadka ku jira buu ku fuulay dadka dhintay labada nin oo dhimatay waa ilaaladii raashinka ilaalinayay weeye daawucuna wuxuu isugu jiraa ilaaladii iyo dadkii raashinka loo qaybinayay ayuu isugu jiraan marka hadda waxa weeye 10 qof waxay u badan yihiin haween iyo ragii waardiyihii meesha waardiinayay ninkii weerarka geystay ayaa isla markiiba goobta ka baxsaday odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku howlan sidii xaaladda ay u dajin lahaayeen waxaana gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Aabudwaaq uu sheegay in maamul ahaan aysan awoodin inay wax ka qabtaan arrimahan oo kale maadaama uusan jirin boolis degmadu leedahay oo shaqeeya